بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أربعة أو قبيس أي سوق جليسو شن يتبانك بشا أكتوبر سنة كالبكون لباتن يشن أو كوبهجن صدح يلباتنك بشا ربيع الثاني سنة كون أفر بغل أفرتن يتضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي قوبانها قضبدا عاو برامج كأن إذي كوهينانا وحا كمدا booliiska Israa'iil oo war ka soo saaray isku day dil oo lagu qaarajin lahaa Netanyahu haddaba sidee wax u dhaceen sidee wax u jiraan waxaan idin haynaa war cusub oo caawa soo baxay oo arrintan la xiriira xogayaha dagaalka ee Mareykanka oo ay qabsatay arrin culus oo naftiisa halis gelisay warbixin ayaan idinkaga haynaa sidoo kale arrintan oo dhalisay hadal hayn weyn isla markaasna ay ka hadashay waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka Trump ayaa mar kale caawa dignin u jeediyay Hamas isagoo sheegaya in hal kelmad oo uu yiraahdo ay ku xiran tahay Israa'iil dagaalka dib inay u bilowdo Hamas oo shaacisay in qaar ka mid ah canaasiirtii Israa'iil la shaqeynaysay ee Gaza ay soo dhiibeen madaxweynaha Masar iyo hogaamiyaha military ee Suudaan oo si adag uga hadlay biyo xireenka Itoobiya iyo xaaladda dagaalka sokeeye ee dalka Suudaan faahfaahin ayaa ka soo baxaysa wada hadallo 2 saacadood iyo dheeraad qaatay oo aqalka Kremlinka ku dhex maray madaxweynaha Ruushka iyo digiisa Syria Ahmed al-Sharaa sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay nin odaya oo 70 jir ah oo u dhashay dalka Talyaaniga oo lagu soo eegay khiyaano dawladda uu ku sameeyay kadib markii uu lacag 1 milyan oo dollar ka badan uu qaadanayay muddo 53 sano ah haddaba maxay tahay sababta uu qaadanayay sheeko la yaab leh ayaan idinkaga haynaa amuurtan dhammaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qobanaha soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Moscow halkaasi oo wada hadallo ay ku yeesheen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo digiisa dalka Syria Ahmed al-Sharaa labada nin ayaa arrimo culus ka wada hadlay waxaana la sheegayaa wada hadalladooda inay qaateen 2 saac iyo in ka badan haddaba wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta labada dal ay wax ka qoreen arrintan ayaa waxa la sheegayaa in kulankan oo ahaa kii ugu horeeyay oo madaxweyne Vladimir Putin aqalka Kremlinka ku soo dhaweeyay madaxweyne Ahmed al-Sharaa waxaana la sheegay in kulanku uu socday 2 saac iyo bar ila warad Syria ayaa xaqiijiyay in wafdiga Syria ee yimid Ruushka ay raadinayeen damaanad qaad Ruushka uu bixiyo oo ku aadan inuusan hubeynayn ciidamadii hore ee xukunka laga tuuray ee Bashar al-Assad sidoo kale wafdiga ayaa waxay ka codsadeen Ruushka in uu ka caawiyo Dimashq dibudhiska ciidamada cusub ee Syria sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee Reuters labada hogaamiye ayaa bilaabay wada hadallo madaxweynaha Ruushka uu ku xaqiijiyay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan ee taariikhiga uu yahay mid adag oo sinaba aan u liicayn Putin ayaa intaas ku daray in Ruushka uu doonayo danta shacabka Suuriya taasna ay tahay sababta Moscow had iyo jeer ay ugu hogaansanayd in ay ixtiraamto madax banaanida labada wadan madaxweynaha Syria Ahmed al-Sharaa ayaa adkeeyay xiriirka taariikhiga ee u dhaxeeya Ruushka iyo Syria isagoo sheegay Dimashq ay doonayso inay sii xoojiso xiriirka labada dhinac Ahmed al-Sharaa ayaa sidoo kale dhawaan wuxuu sheegay in Dimashq ay raaci doonto dhammaan wadooyinka qaanuuniga ee lagu heli karo in isla xisaabtan lagu soo oogo madaxweynihii hore ee Syria Bashar al-Assad kaas oo lagu eedeynayo dambiye dagaal waxaana la sheegayaa inuu ku sugan yahay gudaha wadanka Ruushka ilaa hadda cid madax banaan oo xaqiijin karta ama mas'uuliyiin labada dhinac oo ka hadashay ma jirto in codsigaasi soo wareejinta Bashar al-Assad uu gudbiyay Ahmed al-Sharaa ila wareedada waxay kaloo sheegayaan in madaxweynaha Syria uu soo jeediyay fikrad ah in booliiska Ruushka dib loo geeyo dalka si looga hortago xadgudubyo cusub oo ay geystaan ciidanka Israa'iil
dhanka ruushka war ka soo baxay aqalka kremlinka ayaa waxaa lagu sheegay in arrintaas saldhigyada military ee ruushka uu ku leeyahay Syria ay ahayd mawduuc muhiim ah oo labada madaxweyne ay ka wada hadleen iyadoo la isla falanqeeyay mustaqbalka saldhigyada ciidamada cirka ee Xamaamiim ee ku yaal Ladaqiya iyo Tartus kan ku yaal ruushka halkaasi uu ku leeyahay sidoo kale waxaa laga wada hadlay joogitaanka ciidanka ruushka oo iyaguna ku sugan garoonka dayuuradaha ee Khamishli ee ku yaala waqooyiga bari ee dalka Suuriya wadahadalladu sidoo kale waxay taabteen dhanka dhaqaalaha iyadoo al-sharaacna uu raadinayo taageero toos ah oo ruushka uu siiyo Syria waxaana ka mid ah dib u bilaabidda keenista qamadiga ama sarreenka taasi oo la sheegayo in gudaha Syria aad loogu baahan yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ruushka Alexander Novak ayaa sheegay in mas'uuliyiinta ruushka iyo Syria ka wada hadleen iskaashi suurtagal ah oo ku saabsan dhanka tabarta intii lagu guda jiray kulankan ay ka dhacay magaalada Moscow Novak waxa uu sheegay in yaraanta shidaalku ay tahay dhibaato weyn oo haysata Syria maadaama isku diyeyso inay dib u dhisto dhaqaalaha iyo kaabayaasha dalka kadib sanado badan oo dagaalo ay ka aloosanaayeen waddanka Suuriya waa hagaag qodobkaasna halkaas aynu kaga gudubno markaan balaynu eegno xaggaas iyo magaalada Qaahira madaxweynaha waddanka Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa galabta wadahadal wuxuu magaalada Qaahira kula yeeshay hogaamiyaha military ee dalka Suudaan Abdul Fattah al-Burhan waxaana la sheegay in diiradda lagu saaray wadahadaladani xaaladda Suudaan dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu xoojiyo xiriirka ama in lagu joojiyo dagaalka Suudaan laguna gaaro xasilooni iyadoo sidoo kalena laga wada hadlay arrimaha webiga Niil iyo biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ay dhistay kulankan ayaa lagu xaqiijiyay in Masar ay si buuxda u taageersan tahay midnimada iyo madax-bannaanida dowlad ee Suudaan waxaana la sheegay in Masar ay diidan tahay isku day kasta oo qatar ku ah amniga Suudaan ama isku dayaya in la abuuro maamul kale oo ka baxsan dowladda sharciga ah ee dalka Suudaan dhanka biyo-xireenka Itoobiya Sisi iyo al-Burhan waxay ku celiyeen diidmada Khartoum iyo Qaahira ee ku aadan qorshaha Itoobiya ay wadato ee ay ku maamulayso biyaha webiga Niil arrinkaasi oo la sheegay in labada wadan ay ka midaysan yihiin sidii looga hortagi lahaa isla war arrimahan la xiriira shirkadda diyuuradaha ee Ethiopian Airlines ayaa arbacada maanta waxa ay bilowday duulimaadyadii joogtada ah ay ku tagi jirtay magaalada Port Sudan kadib 5 bilood oo hakad ay ku jireen duulimaadyada sabab la xiriira weeraro diyaaradaha duuliyaha lahayn ee droonka oo lagu qaaday magaalada Port Sudan bishii May shirkaddu waxay sheegtay in maalin kasta duulimaad ka bixi doona Addis Ababa iyo Port Sudan oo markaasi jiri doono ilaa iyo dhamaadka bisha October wixii ka dambeeyay 1 Novemberna duulimaadku wuxuu noqon doonaa 2 mar maalin kasta waa hagaag warkaasna halkaas aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa booliska Israa'iil oo caan warka soo saaray isku day lagu doonayo in lagu qaareejiyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu Trump oo markale Hamas u hanjabay isla markaasna leh aniga hal eray oo aan iraahdo ayay ku xiran tahay Israa'iil dagaalka inay u bilowdo waxaan kaloo eegi doonaa warka ku saabsan xogayaha dagaalka ee Mareykanka waa hagaag xagga qasa aynu eegno halkaasi oo caawa warar kala duwan ay soo baxayaan waxaynu ku hormaraynaa warka la xiriira hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxa ay sheegaysaa in ninkii Hamas ay ku sheegtay inuu kamid ahaa askarta Israa'iil oo ku jiray meydadkii xalay la gudbiyay ee afarta ahaa inuusan ahayn askari Israa'iiliya dabcan intii la socotay barnaamijka wararka waxaan idinku soo gudbinay Hamas oo sheegtay in ninka Israa'iil ay leedahay kuma jirin maxaabiisteena oo qof aan ahayn meydadka ayaa la soo gudbiyay Israa'iil ay beeninayso ayaa Hamas warka soo saartay waxaana xilligaas ay sheegtay in ninkani uu ahaa askari ka tirsan ciidanka Israa'iil oo lagu qabtay weerar al-Qassam ay ka geysatay Jabaaliya meydkiisana la qaatay laakiin uusan ahayn maxaabiistii 7 Oktoobar la soo qabsaday kadibna Israa'iil warka la soo saartay waxay leedahay ninkan Israa'iili ma ahayn wuxuu ahaa nin Falastiiniya oo ka yimid daanta galbeed
laakiin la socday ciidanka Israa'iil marka waxa loo qaatay laba mid in ninkan uu ciidanka ula socday si madax bannaan askarta Israa'iilna uu ka tirsanaa iyo in loo isticmaalayay in lagu hubiyo meelaha gudadka dhulka hoostiisa laakiin bacdama uu labisnaa askarta ciidanka Israa'iil bacdama qoriyihiisa qori u watay markii dagaalku u dhacay ninkan waa la dilay meedkiisba alqasaam ay qaadatay Israa'iil marka waxa leedahay ninkan ma ahan maxaabiistan la ka haystay haddaba arrintii waxa ka hadashay hay'adda warbaahinta Israa'iil waxa la sheegayaa ninkan inuu ahaa nin la shaqeynayay ciidanka Israa'iil isla markaasna loogu talagalay inuu ka shaqeeyo gudadka dhulka hoostiisa ah laakiin waxa la sheegayaa in meedkiisii ay qaateen iska cabinta Falastiiniyiinta sidaasna loogu soo daray meedkii la soo gudbinayay Xamaas marka waxay leedahay annaga maxaa naga gal ninkan askari Israa'iil ayuu ahaa maxaabiistiinu ka mid ahaa waan idin soo gudbin waaye war kale weyn baa soo korray marka caaw horta laba maxbuus oo kale ayaa caaw la gudbiyay meedkoodii lafahoodii laakiin Xamaas war bay soo saartay caaw waxay tiri intaas way inta heli karnaa lafihii iyo meedadkii iyo haraagii wixii la heli karaba maxaabiista Israa'iiliyiinta inta kale waxay u baahan yihiin in goodka la qodo cagafiyo dad khubra ah oo ku takhasusay arrimahaasi iyo waqti lagu qabto arrintaasi baaritaan dheeraada Israa'iil arrintan weli kama soo jawaabin laakiin 19 qof meedadkood ayaa la la'aya haddaba markan aynu eegno warkan waxaa lagu soo warramayaa in kataa'ibul qasaam ay sheegtay in loo baahan yahay in markaa la helo waqti dheeraad ah iyo agabkii lagu baari lahaa maxaabiista kale ee meedkooda la la'yahay waxaana ay sheegtay al-qasaam in sidii qorshuhu u ahaa intii la heli karay maxaabiista meedadkoodii la gudbiyey iyo kuwii noolaa oo 20koodii la gudbiyey cutubiyada al-qasaam waxay kaloo sheegeen inay u hoggaansamayaan heshiiskii la gaaray ee wareejinta maxaabiistii noola iyo kuwii kale meedadkoodii intii kale ay waayeenna ay u baahan tahay arrintaasi waqti iyo qalab lagu raadiyo waaye arrinta marka Israa'iil weli kamaysan hadlin laakiin galabta waxaa hadlay Netanyahu warbaahinta Mareykanka isagoo la hadlay wuxuu yiri Xamaas waxay ku xadgudubtay heshiiskii xabad joojinta maba ahaynba intaas inay gaarto wareejinta maxaabiista iyo meedadka arrinta marka waxa leeyahay laakiin Mareykanku uu og yahay oo xitaa madaxweynaha Mareykanka ayaa afkiisa wuxuu ka sheegay inay arrintan waqti qaadan karto heshiiska markii la gaarayna Xamaas waxay sheegtay 72 saac inaan lagu heli karin dhammaan meedadka maxaa yeelay godad dhulka hoostiisa ah oo 50 mitir 40 mitir hoos ah ayaa la dumiyay marka waxay leeyahay godadkaas macala raggii ilaalinayay iyo maxaabiistii halkaas ay ku hoos jiraan meedadkoodii marka waxa loo baahan yahay waqti iyo qubaro in la soo helo waxa kaloo marka arrinta uga sii dari kara haddii Israa'iil ay tiraahdo 19 baa naga maqan meedadkeennii in dagaalka dib ay bilowday karto arrinta marka waa arrin halis ah dabcan intaynu barnaamijka ku jirno haddii Israa'iil war ay ka soo saarto arrintan waa idin soo gudbinaynaa haddii alla idmo laakiin war la xiriira warkan aynu eegno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahinta Mareykanka goordhaweyta la hadlay muxuu sheegay marka aynu eegno Donald Trump ayaa waraysi wuxuu siiyay telefishinka CNN laga leeyahay Mareykanka wuxuu sheegay in Israa'iil dagaalka inay dib u bilowdo ay ku xiran tahay hal kelmad oo uu yiraahdo wuxuuna sheegay haddii Xamaas aysan u hoggaansamin heshiiska xabad joojinta in arrintaasi halisteeda ay leedahay Trump wuxuu sheegay inuu tixgelinayo inuu u ogolaado Netanyahu inuu dib u bilaabo dagaalka ama uu ka fakarayo haddii Xamaas ay diido inay u hoggaansato xabad joojinta si deynta dadka la afduubtay ee qasa ayuu ku tilmaamay mid muhiim ah isagoo intaasi ku daray in hadda Xamaas ay faragelinayso ama ay baabi'inayso kooxa gacanta ay oo tagtay oo ku jira Mareyka Gaza wuxuu sheegay inuu ka fakarayo wax dhici doona haddii Xamaas ay diido inay ka tanaasusho hubkeeda isla markaasna ay baarayaan eedamaha sheegaya in Xamaas ay fulinayso dilal ka dhan ah dad rayid ah oo Falastiiniina taas oo ku tilmaamay in laga yaabo inay jiraan kooxa ku lug leh ficiladaasi Trump ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inuu qasbay ciidamada Israa'iil iyo xukuumadda Israa'iil isla markaasna uu la hadlay Netanyahu wuxuuna ugu dambeyntii yiri haddii Israa'iil ay awoodi lahayd inay jimiso Xamaas
way samayn lahayd waay Trump marka hadalkiisa waa iska hor imaanaya mar wuxuu leeyahay Xamaas anaga og inay amaanka sugto oo kooxaha caraasiirta ay layso ama ay qabqabato ama hubka ay ka dhigto mar wuxuu leeyahay waxa la soo sheegay dad shiciba inay laynayso mar wuxuu leeyahay Israa'iil aniga xakameeyay oo Netanyahu iyo ciidamada ana xakameeyay haddana muxuu leeyahay Israa'iil hadii ay awoodi lahayd Xamaas inay jabiso way jabin lahayd macnaha muxuu ula jeedaa marka ma awoodi karto marka afka ku dhufan maayo dadka rayidka baa ku dhimanaya meesha ee Falastiiniyiinta ama ciidanka Israa'iil naftooda ku dhimanaya meesha yani dhanacna wuxuu ka qirayaa Xamaas in Israa'iil ay jibin weyday oo Israa'iil ka guuleysan weyday dhinacna wuxuu leeyahay aniga xakameeyay marka warkiisa dadka arrimahan ka faalooda waxay leeyihiin meel loo raaca male waa sababta ay u leeyihiin qobarada xitaa Ameerikaanka Trump waxa uu ku hadli doono iyo waxa laga filan karo lama oga وهاجاك وأنا أركض أنا وحي أربعة سكوسو كرنا مركن وحينو إيجينا إن إسكعبيت فلسطينيين تا أو وركسو صاري عناصر تاس ترى مكهاليو هذا من مسؤول السراء أو كتسن دجالي هذا إسكعبيت فلسطينيين تا يوحى وشيء إن بدن أو كم ده كوحي عناصر تها أي سوء ديبان وحنا وركن لجو شيء بقى ورك المجد الأمني وحنا للشيء إن بصاصين يكوحل للشقين هي إسرائيل أي سوء ديبان maalmihii la soo dhaafay waxaana la tilmaamay inay tahay mid markaasi muhiim ah si markaasi loo badbaadiyo hadii kale waxa la sheegay inay halis gali karaan noloshooda waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli 2 toddobaad loo qabtay dhammaanba kooxihii la shaqeynaya Israa'iil inay soo dhiibaan waaya sheekada Netanyahu oo booliska Israa'iil ay sheegeen in ay ka hortageen isku day dil oo lagu sameyn lahaa oo imaan doona laakiin xogayaha dagaalka ee Mareykanka markii hore wuxuu xogayaha difaac laakiin wad la socotaan waa laga bedelay Pete Hegseth ayaa waxa la sheegayaa inuu halis galay haddaba sidee wax u dhaceen warbaahinta Mareykanka waxay sheegaysaa in Pete Hegseth oo saarnaa diyaarad nooceedu uu yahay Boeing C-32A la sheegay hawada inay ku gashay xaalad adag oo emergency ama xaalad degdeg ah kadibna ay diyaaradii ku soo laabatay garoon dayuuradeed oo ku yaala waddanka Britain واحد الدجال كأمريكان كذا باتيجون كأي واحد حقيقي إن ديارده سد دجاه أو أن قرشي سنين أي مركزي أصل لعبتي كدمرك اللي أجادي دلع إنه كيمد مرايد ظهر ديورده وحنا الشيء إن يدو الفلين يو تلابوين تحدره إن مركز ديارده أي كسر لعبتي جران ميلتري أو كي على ودك بريتن ديارده أي واحد الشيء inay ku sii jeedo waddanka Mareykanka waxaana Pete Hegseth maanta uu ka qayb galay shirka NATO ay ku lahayd magaalada Brussels ee waddanka Belgium halkan sidan kaga muuqato markay qariirada diyaaraddu waxay ka soo kacday Brussels waa qaybtan hoose ee buluug ah markii diyaaradda ay mareysay waddanka Ireland agtiisa ayaa diyaaraddu waxa la arkay qaybta shukaanta ee duuliyaasha ay fariistaan iyadoo dildilaac oo soo galay muraayadihii diyaaradda kadibna si aad u jeedaan diyaaradda waa soo laabatay waxayna kadibna ku degtay garoon ku yaal waddanka Britain waxaa la sheegayaa diyaaraddu inay dirtay waxa loo yaqaano fariin degdeg ah oo xaalad degdeg ah oo lambarkeedu uu yahay 7700 waxaana la sheegay diyaaraddu in jooggeeda hoos uu u soo dhacay ama duuriyuhu u waday ilaa iyo 10000 oo cagood taasi oo muujinaysa in loo fasirtay in cadaadis hoos dhac diyaaradda uu ku yimid si kastaba ha ahaatee waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka waxay caddaysay in dildilaacaasi diyaaradda oo kaliya dhibaatadu ay ahayd laakiin aysan jirin wax khatar ah oo soo gaaray xogayaha dagaalka ee Mareykanka iyo dadkii la socday waxaana la sheegay in uu bad qabo isla markaasna dib ugu soo laabtay garoon diyuuradeed oo ku yaal waddanka Britain waaga qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno diyaaraddan waa diyaaradda halkaas aad uga jeedaan waayahay markan bal waxaan eegaynaa dhankaas iyo war ka soo baxay booliska Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa saacada ka hor inay shaaca ka qaadeen inay gacanta ku dhigeen nin 46 sano jir ah oo lagu eedeeyay inuu ku hanjabay inuu dilayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu boolisku waxay sheegeen in xeeraalinta guud ay gudbisay dacwad culus oo ka dhan ah ninkan taasi oo la xiriirta
saddex kiis oo kala duwan oo la xiriira hanjabaadaha qaarajinta ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu sida booliisku ay sheegeen ninkan ayaa 13 bishan waa maalmo ka hore wuxuu yimid iridka saldhig military oo ku yaala magaalada Tel Aviv isagoo sheegaya inuu qorsheynayo in uu dilo ra'iisul wasaaraha iyo dhowr mas'uul oo la soo doortay kuwaasi oo aan la sheegin kuwa ay yihiin ciidamada ammaanka ayaa ninka halkaasi ka qabtay laakiin xitaa markii gacanta lagu dhigay ninkaasi wuxuu sii waday hanjabaad ka dhanka booliiskii qabtay xitaa isagoo sheegaya inuu doonayo inuu dilo Netanyahu eedeysanahan oo degan magaalada la yiraahdo Rishon LeZion oo ku dhow magaalada Tel Aviv ayaa la weydiiyey su'aalo kala duwan kadibna waxaa loo gudbiyey maxkamad taasi oo go'aamisay in lagu sii hayo xabsiga ilaa iyo maanta magaciisa iyo xogtiisa shakhsiyeed lama shaacin xeer ilaalinta gobolka Tel Aviv ayaa waxay ku soo ogtay 3 dacwadood oo kala duwan oo la xiriira hanjabaado waxaana ay codsatay in xabsiga lagu sii hayo ilaa iyo dhamaadka dacwadda booliiska iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaan faahfaahin dheeraad ah ka soo saarin hanjabaadan iyo ninkan waxa uu adeegsan lahaa dhacdadan ayaa waxa imaanaysa iyadoo Netanyahu uu wajahayo cadaadis gudaha Israa'iil ka imaanaya maadaama haatan uu ku lug leeyahay maxkamad dhexirta musuqmaasuq iyo laaluush iyo jibinta kalsoonida dadweynaha maanta ayaa waxa la sheegay in maxkamaddu markan uu ka soo muuqday laakiin maxkamadda ayaa dib loo dhigay kadib markii warqad loo dhiibay taasi oo laga dhadhasan karay in la doonayo in xaalad degdeg ay jirto ayna tahay maxkamadda inuu ka soo baxo Netanyahu ayaa sidoo kale wuxuu wajahayaa caras sii kordhaysa oo ka imaanaysa qoysaska maxaabiista Israa'iiliyiinta gaar ahaan kuwa meydadkooda weli marayka qasal lagu hayo waxaana lagu eedeynayaa sidoo kale in dagaalka uu daba dheereeyay isla markaasna uu ka faa'iideysanayay danihiis shakhsi in dagaalka uu sii socdo taasi oo la sheegay halis inay gelisay nolosha maxaabiista waaye qodobkaas ayaa wararka ugu dambeeya laakiin markan waxaynu eegaynaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay aalaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin hayaa sheeko la yaab leh waa xaggaasi Talyaaniga nin 70 sano jira ayaa dacwad lagu soo oogay maxaa laakiin lagu haystaa ninkan waxa la leeyahay muddo 53 sano ah ayuu dowladdu wuxuu ka qaadanayay lacagaha dadka naafada la siiyo ninkan oo degan magaalada la yiraahdo Vicenza ayaa waxa la sheegayaa in 53 sano uu qaadanayay lacagaha la siiyo dadka lixaadkooda kala dhiman yahay ninka marka wuxuu yiri waxaan ahay wiir indhoole laakiin ma indhala 53 sano ayuu wuxuu qaadanayay lacagaha gunnada oo la siiyo dadka araggala lacagtaasi hadaad qiyaasto laakiin intee kula tahay waa lacag aad u badan waa 1 milyan oo euro lacagtaasi qiyaastii waa 1 milyan iyo 160 kun oo dollarka Mareykanka ah ninkan magaciisa laba shaacin laakiin waxa la sheegayaa in uu sheegtay in shil uu ku galay shaqada taasi oo keentay inuu indhabeelo laakiin arrinta waxa kama jirin haddaba waxa leeyahay booliiska ayaa ninkan waxay ku soo ogeen dacwad kadib markii baaritaan muddo dheer lagu waday la soo ogaaday kadib markii markaasi la arkay inuu isticmaalayo qalab halis ah iyo arrimo kale oo keenay baa la yiri in laga shakiyay ninkan sida qalabkan uu isticmaalan karo ama uu iibsanayo ciidamada booliiska ee gobolkaasi ayaa ninkan waxay ku soo ogeen dacwadda waxaana la sheegayaa in sidoo kale haatan dacwadda ay socoto xeeralinta ayaa ninkan u gudbiyey dacwad kalena khiyaano oo dowladda waddanka Talyaaniga laga galay waxaana la sheegayaa in ninkan xabsi dheer laga yaabo inuu muto waayahay inta ayaan kusoo gabagabeynaya caawa barnaamijka qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo